salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacaana wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka waa qaybtii saddexaad qisada wiilkii goobay wadada guusha waxay qaybtii inoo mareysay ninkii xigmad badanaha oo ku yiri anigu waxaan ka caawinayaa sidaad ku gaari lahayd wadada guusha ee inakeen qaybta saddexaad waxay ku bilaabanaysaa xigmad badani wuxuu fiiriyay wiilka yar indhihiisa oo uu ku yiri dariiqa guusha wuxuu ka bilaabmaa sabab wiilkii yaraa ayuu weydiiyay oo uu ku yiri maxaad doonaysaa wiilkii yaraa waxaan doonayaa inaan noqdo meel sare gaara xigmad badani wuxuu yiri jawaabtani waa mid guud waayo dadka oo dhan waxay doonayaan inay noqdaan qaar meel sare gaara laakiinse adiga himiladaadu maxay tahay wuxuu weydiiyay himiladu maxay tahay xigmad badani ayaa ku jawaabay himiladu waa dhamaadka wadada marka adiga maxay tahay aragtidaada mustaqbal iyo dariiqaaga dhamaadkiisa wiilkii yaraa waxaan doonayaa inaan noqdo meel sare gaara xigmad badani ayaa ku jawaabay hadalkan hore ayaan kaaga maqlay haddii mar labaad ku celisina meeshaba waan kaaga kici laakiin ii sheeg aragtidaada mustaqbal oo xadidan oo cad maxaad doonaysaa inaad noqoto wuxuu yiri wiilkii yaraa waxaan doonayaa inaan aasaaso shirkad aniga qaas ii ah xigmad badani ayaa weydiiyay oo majaalkii ayaa doonaysaa inay shirkadaadu ka shaqeyso wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay electronic oo waayo ayuu yiri xigmad badani maxaa yeelay caalamku maanta wuxuu hore ugu socdaa horumar cilmi sidaa daraadeed waxaan doonayaa inaan qayb ka ahaado caalamka horumaraya waxaan doonayaa inaan noqdo mid guul sare gaara xigmad badani waa si fiican tani waa aragtidaada mustaqbal laakiin imise sano kadib ayaad doonaysaa inaad xaqiijiso himiladaada wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay 5 sano kadib xigmad badani oo muddada 5 sano maxaad qabanaysaa 5 sano markay dhamaato waxaan rajaynayaa inay himiladaadu xaqiiqowdo intaa kadib xigmad badani waxa uu bilaabay inuu wiilka yar ee dhalinyarada ah u sharaxo faraqa u dhaxeeya himilada iyo hadafka socda waqti go'an xigmad badani wuxuu bilaabay isagoo hadalka sii wata wuxuu yiri wiiliyow si fiican ii dhageyso muxuu yahay faraqa u dhaxeeya himilada ama yoolka iyo hadafka dad fara badan ayaa aaminsan inay isku mid yihiin laakiinse hadafku waa qayb ka mid ah himilada ama yoolkuna waa dhamaadkiisa dadka intiisa badanina waxay u arkaan in dhamaadka dariiqa uu yahay hadafka taasi oo keenta marka dambe inay niyad jabaan maxaa yeelay wuxuu kala saarayaa waxa uu imika yahay iyo waxa uu doonayo inuu noqdo taas oo ayaa keenaysa in niyad jab ku dhaco taasi waxaa sabab u ah dariiqa oo dheer awgeed laakiin kaasi waa dariiqa saxda ah ee aan doonayo inaad marto imika himiladu ama yoolku waa dhamaadka hadafka oo tusaale ahaan inaad mulkido shirkadda aad doonayso hadafkuna waa jaranjarooyinka aad midka kale ku sii gaarayso ilaa aad kala kulmayso shirkadda wadada koowaad ee sareyntuna waa garashada himilada oo himiladii aad u sii jajabiso hadafyo halkaas oo hadafba midka kale ku sii gaarsiinayo hadaf kastaana wuxuu qayb ka qaadanayaa sidii aad u gaari lahayd himilada haddaba maxay tahay himiladaadu wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay waa inaan yeesho shirkad kamid ah shirkadaha Dr. Nayaab oo kale waa nin maalqabeen ah xigmad badani wuxuu ku jawaabay muxuu yahay hadafkaaga koowaad wuxuu weydiiyay hadafkiisa koowaad wuxuu yahay halkaas ay inoo joogto qaybta saddexaad qaybta afraad waxay nooga bilaaban doontaa insha Allahu tacaala wiilka yar oo sharaxaya hadafkiisa mustaqbaleed iyo waxa uu doonayo iyo sida uu doonayo inuu u dhiso shirkadiisa haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir haddii aad hore inoola joogtana fadlan like share ha naga ilaabin saaxiibadaadan kalena la wadaag